horta aan idin warramo subscribe baad odhanaysaan channelkan horta Xuseen baa la dhaka weynaa la Xuseen dhaka weyne markii saddex fariyarada uu adiga maxaa ka gaay subscribe ku dhadii soo gar ila liqa bismillah alhamdulillah walaal waa umahad celinaya idaacadda kulmiye iyo sigaara adigaba intaas kadib shirkaas wuxuu ahaa shir ugu magac daray shirweynaha culimada Soomaaliyeed oo yani naloogu sheegay inuu yahay xaq jirka iyo looga digayo arrimaha maartay rabixishada dhaqdhaqaaqnimada islaamka iyo waxaas looga hadlayo iyadoo heshiisiinta looga hadlayo iyo mashaalaxada sidaas ayaana annaga ka wasiir ahaan wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya inuu casuumtay annaga oo wasaaradda arrimaha diinta waqafta iyo galmudug sidaas ayaana uga soo qayb galnay oo maaragtay aan ku tagnay maalinimadii shalay markii maalinimadii shalay shirkii aan tagnay oo furmay isla daqiiqada yar kadib waxaan ogaanay oo aan ka war helnay wax runtii aanan filanaynin munaasab darrana runtii ahaay ayaan ku aragnay waxaana isla markiiba maaragtay ashtaka iyo cabasho uga gudbinay wasaaradda arrimaha diinta iyo waqafta oo wasiirada iyo dhammaan agaasimayaasha ay joogeen markiiba adugu waxay noo sheegeen inay wax ka qabanayaan dadaalo dheer ilaa iyo xalay ilaa yani maaragtay saaka waa beriga hore ilaa shalay oo shirku furmay oo aan isku dayaynay in arrintaas ay xalliyaan oo aanu arkaynay brotocoolkanaga iyo matalaadanaga galmudug inay meel ka dhacyo iyo ku tahay xadgudub xagga qaanuunka iyo yani haykalka dawladnimo intaba inay wax ka qabtaan laguma guulaysan boqolkiiba boqolna waxaa arrintaas runtii qaadaysa dowladda federaalka marka wasiir arrimaha diinta iyo waqafta oo arrintaas ka dhaga horeyska dhigaataysa galmudug adiga u jooga wasiir marka say wax u rabteen oo haddana dhibaato u aragteen annaga markii anagu wasiirkii wasaaradda daaba anagu aan ahay delegationkayga iyo aan xubnahayga la imid wasaaradda ugu casuuntay aan imaanay waxaan yani wax u aragnay dad kaleeto oo aan wasaaradii taatalkeedii aan maaragtay haysan iyo xubno kaleeto oo iyaguna shirkii fadhiya oo matalaad ku leh oo sheeganaya mas-uuliyadii yaqti ku hadlayaan inay brotocoolki ku joogaan arrintaasna waxaan u aragnay marka galmudug aan ka soconaa leh oo adina aadna ogeyn يعني لو كما ورهينا waa wasaaradda arrimaha yani dawladda federaalka iyo si gaar wasaaraddu sheebka ay kala soo baxdo dana gooniyo oo anagu aan garanaynin ay kala yihiin ayna runtii heed xadgudub ay u geysteen wasaaradda iyo guud ahaan maamulka galmudug marka wasiir dawladda markaad cabashadiina u gudbiseen oo aad tiri ilaa haddana jawaab kama hayno markii hore wax ma idin ka dhaheen ragga markaad dhahdeen waa ka cabanaynaa waxay ka ogeemideen markii waxay noo sheegeen inay shirkana ka saarayaan ninkaas maaragtay iyo ragga ay kaleeneen shirka inay banaanka uga bixinayaan berina ay xaaladda caadi ku soo celinayaan insha allahu tacaala saasay noo sheegeen annaguna markii wasaarad ahaan waxaan tala kula noqday madaxdii iga sarreysay oo madaxweynahaas iyo maaragtay ra-iisul wasaaraha galmudug iyo dhammaan tiimka golaha wasiirada aan kula noqday talo oon report siiyo dawladeyda oo niri waxaasaan meesha kala kulanay waxaana sugaynaa inaan xal ka gaarno intaas ka gadaal markii aan wargeliyay saaka haddana meeshii aan tagnay weli waxayna niri maxaa arrintii laga qabtay waxay nagu wargeliyeen inay sideedii tahay oo yani nin kaleeto wasaaradda wasiir ah iyo aduguba laba wasiir shirka aad ku joogaysaan wax noocaas marka magaca ma noo sheegi kartaa ninkan kale iyo cidda ay ku sheegeen inuu matalayo macnaha cidda yani miyaad ula jeedaa meesha maya ninkan kale aad ka cabanaysaan magaciisa ma noo sheegi kartaa iyo maadaama meeshu erge ay ka imaanayeen maamul goboleedyada galmudug adiga ka socotid isagana dhanka kale uu ka socdo maadaama galmudug adiga u joogtay laba galmudug ma jirtee
ma kuu sheegeen magaciisa ma nala wadaagi kartaan? horta ninkaas waa nimaan aan garanayo oo inta aan ogahay wasiir horeeta soo ahay oo yani isla wasaaradan beri soo hayay waadhahana sifa aan sharci yahay magaalada maaragtay cadaada doorasho yani waxa lagu sheegay ninkaas oo u tegay oo ka qaatay isaguna ku sheegay wasaaradaas ahayn oo aan u malaynayo oo waliba aan hubo inay ahayd wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka. ninkaas ayaan ku aragnay oo wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliya iyadoo ay abuurtay oo ay meesha keentay oo delegation wata oo iyagu ay ku leedahay magaca ma noo sheegi kartaa wasiirkaas? ninkaas wasiirka hore ahaa jiray magaciisa waa nin aad ku heli kartaan oo iska macruuf ah. marka wasiir badan soo maray mudan galmudug dhowr jeer wasiir la bedelay way badnaan karaa marka si dadku ay u ogaadaan de waa wasiir dad soo dirsaday adnaan qarin oo sheegtid ma suurta gelin kartaa? magaca ninkaas horta waa idin sheegi karaa laakiin ninka aan xilligii Cabdikariim Goolaad wasiirka diinta iyo awqaafta asaga noqday ilaa aniga yani madaxweyne xafilkan ii magacaabana wasiir diineed oo kale galmudug laga magacaabay. marka waa aad heli kartaa marka waad ogtahay galmudug khilaaf baa ka jira way garabyo badatay laba gudoomiye baarlamaan iyo waxba isbar yaacaya ma kula muuqataa dawladdu inaysan qaldaneen oo idinka wax idinka qaldan yihiin oo adnan idinku aan saxsaneen oo heshiis ahayn oo maamul dhisan ahayn inaad rabtaan inaad hal meel ku wada kulantaan? Usmaan aadaan su'aashaada ugu diirsanayaa waa su'aal meesha geli karta laakiin si kooban haddaan kuugu jawaabo walaalga Caliye galmudug madaxweynaha sharciga oo ay leedahay oo mandate kaliya waa haaf adaguna hadda inaadan ka murmayn baan aaminsanahay wasiirada oo magacaabana yani wasiir sharciga noqonaya wasaaradda markaan taasaan ka leeyahay dhanka maaragtay khilaafaadka aad sheegtay. dhanka kaleeto wasaaradda qaladka ama islahayn meesha aad leedahay wasaaraddu qaladka ayadaa leh sababtoo ah inay aniga azuumaad ii fidiso oo aniga iyo delegation-kayga ayna casuumto asagina ay azuumaad nin kaleeto ay azuumaad u samaydo wasaaraddii waa hore ka tegay oo hataa meelo kale yani xil kaleeto u doonto isla wasaaraddii ka duwan inay maaragtay isagii inta soo noolaydo ay keento oo ay tiraahdo adaana speechkii ku hadlaa protocolkiina iska leh anigiyo taagana madaxweyne sharciga ahayna ay adugu xoogaa noo kaadi waxay ila taqarab yani qorax soo baxday saxaba laguma aadi karo Usmaan. marka adiga adnan hadlin isaga galmudug ku hadlay ma uusan hadlin markii anagu aan ogaanay oo anagu meesha joogo oo isagoo ay u diyaariyeen waxaan u sheegnay xafiiska prime ministerka yani oo shirka sabood gareynaya iyo dhammaan wasaaradda waxaan hor dhignay inaan shirka ka baxayno ka wasaarad ahaan haddii maaragtay ay markii speechkii way ka joojiyeen mar kaleeto waxay isku dayeen qaybta protocolka ayadana way ka joojiyeen. wasiir cabashooyinkiina noocaana way soo laabteen shirkii arrimaha gudaha looga hadlayaa mar sidan oo kale dhacday waa markii saddexaad malahayga aad leedihiin ergo annaga aanan matalin oo aanan ogeyn baa na barbar socda oo dawladdu casuuntay khilaafkiinana waa joogto waa jiraa muddada 4 sano waxay u muuqataa inaad ku dhamaysateen isjijiid iyo muran iyo dhinacyo isbarbar socda maxaa kula muuqda xalka? walaal Usmaan aad u mahadsan waa runtii waa ka xanuunsanaya nasiib darrada Soomaaliya ku dhacday oo xagga amniga iyo hay'adihii iyo dhanburburka saameeyay. anagu waxaan kamid ahay dadkii oo maaragtay dalka wax ku dartay oo dhalinyaro ah oo xaaladaas wabjoog ahay waxa aan yani ka dagaalayno oo raadinayna waxay yihiin in dawladda federaalku maadaama ay tahay madaxda ka saraaxa mare meeshii dalka ugu sareysay wasaaradda inay yani sharciga iyo dastuurka ay ilaaliyaan oo qof walba immunity iyo waxa uu leeyahay lagu ixtiraamay iyo xasaanada si ay u soo dhawaato macnaha halka Soomaaliya. mid kale inta labaad wasaaradda diinta iyo awqaaftu waa wasaaradda diinta
diinkuna waa wixii ilaahay koonka in lagu dhaqaa uu soo dejiyey waa wasaaradii la rabay naxariista iyo tasaamuxa iyo maaragtay is-afinta iyo isqadarinta iyo cadaaladda inay iyadu u heliso marka waxaa la yidhi moogtahay khayrayeertaas xaggee ka yeerta masaajidka xaggee ka yimid khayrayeer xasaa la yidhi masaajidka noo carajiya sana masaajidkiiba kasoo yeertaan marka runtii waxaa waaye wax aada looga naxo in wasaaradii arrimaha diintu iyadu ay noqoto midda qaska iyo qoorta isugelinta iyo maaragtay iska horkeenka bulshada Soomaaliyeed iyo maaragtay xaqiraadda galmudug iyadoo bilowday inay noqoto oo ku aanbaxday wax nasiib daraa waaye waxaan marka aad iyo aad u jecelahay xafiiska madaxweynaha iyo prime ministerka xafiiskiisa waan gaarsiinay oo joog u ahay runtii waxay noo muujiyeen inaysan intaas ee wasaaradda la qabinin laakiin still waxaan ka sugaynaa jawaab cad in ay waxaan la og yihiin wasaaradda waqtiga madina iyo inaysan la ogeyn ay tahay sida hadda sida boqol dambi wasaaradda oo qaafiyada u doonay oo ay gashay halka Soomaaliya wuxuu ku jiraa in la ixtiraamo in qof walba waxa uu yahay lagu qadariyo in la isu dhimriyo oo la isu naxariisto in wadaniyada in dalka la wada leeyahay siyaasadda la wada leeyahay in ay dastuurka ummadda yacni degsatay lagu ixtiraamo markii intaas aan helno isqadarino wax walba ha hore electiraaf inaan soo qoonsano markaan soo qoonsano isqadarino ilaahayna aan isku xirno xaqiiso qalbiganaga yacni ilaahay u jeedino aan la barino waxaan aaminsanahay xalku inuu yahay wala